taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Jarnaal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar warbaahinta kula hadlay gudaha dugsiga hoyga Xamar oo saaka ay burburin kula jarmaadeen ciidamada booliska ayaa sheegay in wixii dhacay ay qalad ahaayeen isla markaana wuxuu tilmaamay in arintani ay ku lug leeyihiin hay'ado ka tirsan dawladda taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in warqad dacwo ah oo ay soo gudbiyeen bahda waxbarashada oo aan kala harin ay gaartay xafiiska madaxweynaha wuxuuna hoosta ka xariiqay in dawladda ay ka go'an tahay horumarinta daryeelka waxbarashada sidoo kale taliyaha Xijaar ayaa xusay in dugsiga hoyga Xamar uu ka mid yahay iskuulada ku yaala dalka wuxuuna tilmaamay in mar dambe aysan dhici doonin wixii xalay ka dhacay iskuulka isagoona tilmaamay in haddii ay dawladdu u baahato iskuulka ay iyada imaan doonto sidoo hadalka u dhigay taliyaha waxaan aad iyo aad idinkaga mahadcelinayaa sida wanaagsan uga soo qayb gasheen shirkan jaraa'id oo maanta halkaan ku qabanayno kaasoo ku yimi bahda waxbarashada ee mas'uuliyadda dugsigan haysay iyo gobolka Banaadir af iyo qoraal bay saaka ku gaarsiiyeen madaxda sare ee dawladda ugu horeeya madaxweynaha prime ministerka wasiirka tacliinta wasiir ku-xigeenka warfaafinta oo ka jawaabayay dhammaantood ay soo gaadhay dacwadiinii xalay wixii meeshan ka dhacay oo hay'ado ka tirsan muxuu ahaa dawladda ay ku kaceen booliiska life idinku ima noloshaad ku aragteen saraakiishii iyo askartii idin timi laakiin hay'ado kale oo dawladeed baa iyaguna ku jiray oo muxuu ahaa ka qayb qaatay falkan inuu dhaco annagoo taa ka jawaabaynaa sidaa halka ku imi marka horeysa warqadii aad u dirteen madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuu helay jawaabteedii aan halka ku imi prime ministerku telefoon buu laba jeer igu soo wacay isagoo ka walwalsan bahda waxbarashada ee dawladdu isaga hogaaminayo sida ay uga go'an tahay inuu u taakuleeyo u gacan qabto u barbaariyo wax uga soo saaro iyo warqadda dacwada u timaas qaban waayay ilaa laba jeer wasiirku way soo wacay ra'iisul wasaaruhu way soo wacay in anigoo ka mas'uula ciidanka booliiska Soomaaliyeed anigu nafteedu aan meesha tago xaaladda indheeyo qiimeeyo kadibna shirkan jaraa'id ay ka soo qayb galaan dadkii saaka dacwadu soo qartay ay arkaan sida dawladdu uga soo jawaabtay aan halka ku wada qabanno taasi waa qodobka labaad aan rabaa inaan idiin sheego waxa weeye dawladdu waxaa ka go'an horumarinta iyo daryeelka waxbarashada marna kuma talagelin inay meel waxbarasho leedahay haddii laga qaadayana sharci baa lagu qaadaa kaligiis maaha iskoolaad badan oo tiro badan oo hadda waxaa jira dawladdu dhulal ay lahayd oo dawlad gacmaha dad kale ku hayaan dadkina ogol yihiin dawladdu marka hadday rabto procedure iyo nidaam bay u soo maraysaa sidii xalay oo kale inay dhacdo ma ogolin iskoolkan wuxuu ku fadhiyay sharci warqado qoraal ah wasaaradda tacliinta iyo wasiirada kala dambeeyay oo intaasoo sanadood wax ka soo baxayeen la ogaa weeye hadday noqoto in dawladdu la noqoto waxaa jira nidaam la rabay in la soo maro aad iyo aad baan waxaan idinkaga muxuu ahaa raali gelinayaa dhacdadii xalay dhacday inaan wasaaradda tacliinta siyaasadeeda aan ahayn siyaasadda dawladda ahayn tan prime ministerka ahayn tan booliiskana aan ahayn waxaan saraakiishii iyo hay'adihii ku shuqul lahaa gaar ahaan kuwii aniga aan iqaabilsana booliiska ee hawsha fuliyena tallaabo sharciya laga qaadayo oo aad maqli doontaan ilaa berri subax haddii ilaahay nafta lagu gaarsiiyo tallaabo sharciya laga qaadaya booliiska kaliya maaha waa cid kasta oo dawladda ka socotay oo falkan ku lug lahayd waay waxaan caddaynayaa maanta oo jimco ah oo dalka moogtahay aanu ku jirnay muxuu ahaa safgaradkii xalay dalka dejiyey magaalada noo dejiyey oo nin walba uu ku saxday farxad in qof walba ay soo gaadho hoygiisa ay ku soo gaadho waxaasna dawladdu waa ka shaqaysay waa u dhabararagtay waa u soo jeedeen ilaa shalay oo dhan in maanta marka hay'adihii tacliinta ee baalasha u ahaa dawladda in falkaan oo kale xalay uu ka dhaco ama lagula dhaco
laga dhaco wax laga muxuu ahaa laga xilkeeda la qaato waay waxaan filayaa mas'uuliyiinta meesha ka hadashay aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa hadduu yahay gudoomiyaha degmada hadduu yahay muxuu ahaa waxbarashada muxuu ahaa gobolka Banaadir dalada waxbarashada ee gobolka Banaadir maamulaha dugsiga professorka iyo agaasimayaasha oo dhan nala jooga kulligood waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa sida diiran ay u ajiibeen ama u qaateen ama noola garteen fariintii aanu dawladda ka sidnay aanu soo gaarsiinay sida ay u qaateen aad iyo aad annaguna uga mahad celinaynaa waxaan jecelahay tan oo kale inayan dib dambe u dhicin waxaad ogaataan inaad dawlad leedihiin dawlad tacliinta jecel leedihiin wixii dambe oo yimaada iyo wixii la midana wadadii la mari lahaa waa idin furantay tanna waxay idin adkaynaysaa dawladdu hadday iskoolkan u baantay iyadaa soo doonan doonta inta ka horeysana waxaanu jeclaan lahayn ma taqaanaa waxaa intaa ku darayaa waxaad soo tusteen dhibaatadii gaadhay sariiro iyo derbi la dumiyo iyo waxyaabo noocaasa dawladdan kula noqonayaa wixii awoodeeda ah oo prime ministerka iyo wasaaradda tacliinta iyo sida wax looga qaban lahaana iyagaan la kaashan doonaa annagana kan booliis ahaan sideedaba booliisku waagii beri waa naloo yeeraa dacwaa naloo haysta maxaa yeelay shaqadeennaaba ah inaanu wax qaladno oo marqalka qaadkood waa dhacdaa laakiin inta badan waxaan isku daynaa inaanu la noolaano bulshada oo wax la qabanno oo 17 degme xamar iyo waaxyaheeda aanu garab taagnaano marka mararka qaarkood wax waa dhacayaan bini aadan baanu nahay sidaas in mataqaanaa fariintaas aan soo gudbiyey aad jiibteen dawladda ka wada iyo madaxda iyo muxuu ahaa tan booliiskaba intaasaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo aad iyo aadna wayda kaga mahad celinaya kasoo qaybgalka dhammaantiin si kastaba aroortii hore ee saaka ayay ahayd markii ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya ay burburin kula jarmaadeen dugsiga hoyga xamar isla markaana ay burburiyeen qaybta caruurta lagu xanaaneeyo ee dugsiga hoyga xamar ee ku yaala degmada Hodan gaar ahaan agagaarka isgooska kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho Maxamed Axmed Mursal Sam News TV magaalada Muqdisho